السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تقاليقا كسود هذا جنال كيغا أسد دارو جنال waxaan maanta idin soo diyaarinay qodobo ka caawinaya dhiirigelinta naftaada ee ka bogasho wacan waayo fashilka ugu horeeya ee nolosha wuxuu ka bilaabmaa inuu qofku ku guuldareysto inuu la xiriiro Ilaahay markasta oo aad guul gaadho Ilaahay xus oo xasuuso una mahad celi waayo isaga wax waliba ku fududeeyay noqo qof leh samir iyo dhabar adeeg oo ku wajihi karo duruufaha ku gadaama noloshiisa yeelo jadwal kugu hagaa waxaad qabanayso iyo sidaad u qabanayso sameeyso waqti aad ku raali geliso naftaada oo u sheeg inay tahay mid wanaagsan wax kastaana ay qaban karto oo fikir si taban waayo fikirkaagu waxa uu go'aamiyaa nooca shakhsi ee aad noqonayso oo hadduu fikirkaagu yahay mid toogan hab dhaqankaaga nolosha aad ku wajahaysana waxa uu noqonayaa mid toogan wax kastana wuxuu kugu noqonayaa wax adag kadibna qoys ayaad istaagaysaa laakiin haddaad ku wajahdo fikir taban waxa kasta wuxuu ku fududeynayaa si dhib yarna waad u qabanaysaa sameeyso waqti aad ku qiimeyso wax qabadkaaga shakhsiyadeed ha noqon qof afka wax ka sheega kana go'aamiya laakiin ha wada socdaan go'aankaaga iyo wax qabadkaaga yeelo dad kugu dhiirigeliya inaad wax noqoto oo han iyo himilaba leh ha ka cabsanin inaad gasho qaladaad waayo xigmadda lagu sheegay waxa laga helaa qaladaadka aan sameeyno markaan qalad galno qaladku wuxuu noo noqdaa cashar noqo qof sameeysta farxadda ee ha noqonin qof ay farxaddu sameeyso ugu yaraan maalintii ku dadaal inaad hesho waqti aad ku dhiirigeliso naftaada tusaale ahaan dhageyso qisooyin dhiirigelin ah ama daawo fiidiyoyaal dhiirigelin ah haddaadan awoodin intaa akhir wax anfacaya naftaada ka agdhabow oo ka qayb gal meelaha lagu qabto bandhigyada cilmiyeed ku tababar naftaada inaysan ka caajisin waxa ay go'aansato ee isla waqtigaaba ku dhaqaaq waxaad go'aansatay ku noolow kalsooni nafeed oo ogow in dhib kasta oo ku soo wajahaa uu ku dhaafayo oo aanay waxba ku yeelaynin inaad wax ka barato mooyaane noqo qof ay ka go'an tahay inuu horumar gaaro waayo qofka haddaanu lahayn go'aan qaadasho dhaba way adag tahay inuu horumar shakhsiyadeed gaaro ha isdhibin markaad la kulanto dhibaato ee u qaado inay tahay wax ku xoojinaya waayo guul kastaaba dhib ayaa kaa xiga ha yaraato ama ha badnaato uriyo si ballaaran oo aan xaalad lahayn ama aanan xad lahayn noqona qof hankiisu weyn yahay oo filo mar kastaba wax wanaagsan waad heliye iska ilaali inaad dayacdo waqtigaaga oo aad ku lumiso wax aan faa'iido lahayn ka dheerow isqoomamaynta waayo waxay dishaa hanka iyo himiladaada la saaxiib dad leh han iyo himilo iyo aragti fog oo mustaqbal ka dheerow dadka niyadjabka abuura ee aan wax rajo ah ka lahayn nolosha waayo adna waxay kugu dari karaan kooxdooda ka dheerow waxyaabaha kugu dhiirigelinaya inaad ka gaabisid horumarkaaga iska ilaali waxyaabaha ku horseedaya dib u dhaca qorshahaaga joogtii xamaasadaada nafeed adigoo dib u jaleecaya guulahaaga aad gaadhay ogow inaan mar kaliya waxaanu dhani kuu suurtagelaynin ay u baahan tahay waqti iyo inaad ku celceliso